konton ilaa 80% ciidamadeena qalabka sida waxay diyaar u yihiin inay ka warceliyaan dhawaqa madad ee ka soo yeedha odayada ka taliya Maka. taas waxaa astaan looga dhigay kalsooni darrida uu qabatan la xidhiidha sida ay daacad ugu yihiin dadkiisu iyo ciidamada uu ku sheegay inay qaar kale gurmad degdega la gaari karaan. intaas waxa ay Mohammed bin Zayed ka dhigeen inuu doondoono qaar kale oo calooshood shaqaystayaal lagu oo ilaaliya amniga dalkiisa Imaaraadka Carabta. Imaaradda Carbeed buufiska amniga. General Mike Henmarsh oo general reer Australia ah isla markaana loo magacaabay madaxa ilaalada gaarka ee madaxtooyada Imaaraadka waxa uu joogo u yahay calooshood shaqaystayaal laga soo waarido dunida oo dhan. dhaqaalaha ku baxa calooshood shaqaystayaasha ayaa lagu sheegay inta u dhaxaysa 2,800 ilaa 18,000 oo dollarka Mareykanka iyadoo loo eegayo hadba heerka uu ka gaaray ciidamada. calooshood shaqaystayaasha shaqadoodu waa oo keliya inay ilaaliyaan qasriga madaxtooyada, warshadaha gaas ka soo saara, jirdilka mucaaradka dalka, barataarka dagaalada ay Imaaraadku ka wadaan Liibiya iyo Yemen. maanta Imaaraadku waxay xarun u tahay shirkadaha ugu badan ee shaqaaleeya calooshood shaqaystayaasha. waxaa ugu caansan kuwa Cyrus International iyo ninka ay shirkada yihiin ee Eric Prince, asaasihii shirkadda Blackwater oo iyadu kul sii horreysay sheegatay inay tababarto ilaa 2,000 oo askarta Soomaalida ah. Eric Prince oo dhalashadiisu Mareykan tahay waxa uu caga kaga baxsaday maxkamad kadib kolkii la amray in la soo xidho. sida ay warar xogaali sheegayaan odayga waxaa loo haystaa dacwado dhowr oo kulligood ku lug leh daydaynimo aan loo meeldayin. xilligaa kadib odaygu waxa uu baqa cararay xagga iyo dalka Imaaraadka. Imaaraadka ayaa qudhoodu leh 12% waxa ay soo boobaan calooshood shaqaystayaasha. 1,500,000 ayaa lagu qiyaasay dakhliga ay ku bixiyaan Imaaraadku dilalka qorshaysan calooshood shaqaystayaasha ka howlgala goobo badan oo dunida ah. kolka taala la akhriyay Imaaraadka oo noqday dalka ugu hub iibsiga badan dunida maanta, halka sanad kaliya uu ku bixiyay umurta 19 milyan oo lacagta Mareykanka. Imaaraadku buufiska iyo cabsida ay xagga amniga ka qabaan ayaa ka dhigtay inay saas xidhaan hay-adan oo u gaadha tirdoon isku xidha calooshood shaqaystayaasha ay soo ururiyeen oo dunida oo dhan yaalla. arrimaha oo dhan ayay dad badan oo goobjaagahi qabaan inay xagga dambe ka riixayaan sirdoonka dalka Mareykanka. ragga umurta ku mashquulsan waxa u horeeya Larry Shanz oo isagu mas'uul sare ka ahaa barnaamij lagu jaasuusayay muslimiinta New York, Richard Clark oo isagu imika la taliya u ah Mohammed bin Zayed, horeyna uga tirsanaan jiray sirdoonka xagga amniga ee dalka Mareykanka. haddii aan wax walba u sheegi lahaa sida ay yihiin gaar ahaan arrimaha qaar, dadkaygu waxay la dhici lahaayeen dhagax. sidaasuu Mohammed bin Zayed hadalkiisii ku afxiray.